maxkamadda sare ee dalkani Jarmalka ayaa soo saartay go'aamo cusub oo khuseeya qofka magangalyo doonka ah kuwaasi oo siyaabo kala gedisan waxtar ugu leh dadka u soo haajiray dalkani federaalka ah 16 ismaamul ee uu ka kooban yahay dalkani dhaqaalaha ku hormaray ee Jarmalka ayaa bilaabay inuu qaabilo ajaanibta ka soo haajirtay dalalkoodii siyaabo kala gedisan haddii ay noqon lahayd dagaal la afeeyay dalkaasi arrimo siyaasadeed oo qofka muhaajirka ay ka cabanayo kuwa diimeed iyo waliba kuwa ku salaysan dhaqanka oo ay shuruucda caalamiga ah ee qaxoontiga adduunku dhigayaan bisha December ee sanadkan sii dhamaanaya 2013 ayaa go'aamada soo baxay ee qaxoontigu ay si weyn ugu kala qaybiyeen bulshadii ku sugnayd dalkani ee wali kiiskooda aan laga gaadhin go'aanka waxaana markii ugu horeysay taariikhda dalkani Jarmalka intii uu dib u bilaabay inuu qaabilo magagalyo doonka hal mar si wada jira loogu kala diray boqolaal muhaajiriin inay isaga baxaan dalkani muddooyin cayiman gudahooda ugu yaraan 14 maalmood ilaa iyo hal bil taas oo qofka loo ikhtiyaar gelinayo inuu aqbalo inuu isaga baxo dalkani iyo waliba inuu ka qaadanayo dacwad ka dhan ah go'aanka dawladda dhexe ee dalka federaalka Jarmalku ay ka gaadhay kiiskiisa magangalyo taasi oo qofka muhaajirka ah uu la xiriiri karayo looyarada iyo waliba hay'adaha kale ee ka madaxa bannaan dawladda dhexe ee xukuumadda Bundesaamt hay'adahaasi oo lagu magacaabo Caritas iyo waliba Diakooniga cagsiga go'aamadaasina waxaa shuruucda kale ee soo baxday ee waxtarka u leh bulshada magangalyo doonka ay hadba la jaan qaadayaan shuruucda deegaanka oo qofku uu ku sugan yahay ee 16 dawlad hoosaad ee dalkan federaalka Jarmalka qaybahooda ajaanibta qaabilsan ee loo yaqaan Ausländer Boardiga waxaana qodobkii hore ee 25 abistaqayga ee qaabilaada bini'aadamnimo loo bedelay 25 abistu ama abisbay oo ahaa waxa Soomaalidu ay u taqaano blue passportiga isla markaana qofka haysta 25.3 waxa uu la xiriiri karayaa Ausländer Boardiga si looga bedelo balse waxaa jira farqi kala duwanaansho oo xuquuqdooda ah kuwaasi oo ah keenista dadka familiyada ah iyo waliba guuritaanka qofku u guuri karayo meelo ka baxsan deegaankii markii hore uu deganaa Mustafa Haji Aadan Haarun telefishinka caalamiga ee Cable TV wararka Yuruba